waxaan isku noqonay maya ani ma goyn adi sida ugu jirtaa adi sida ma ugu jirtid no marna ka baxay marka adi ku hal mar wada go'an labadan labadan hal mar aan go'an ma horta waa waay waa ku waay macna iwad marka waxaan ka waday taariikh ahaan hadduu ilaahay subxaana watacaala nabi ciise ugu sheekeeyey wax u dhaceen arrinta kaliya dadka ay ka doodi karaan waxa taariikhdan way khaldan tahay ama way saxan tahay laakiin ma wax lagu doodi karo quraanka nabi ciise hoos oo u dhigay ama ma aragtay hoos uma dhigin wallahu a'lam waxaan rabaa inaan ku weydiiyo hal su'aal xogaa waqti waa kaasii qaado mase cabaarna sii joogno waa samayn karnaa maya xogaa yar adiga ilaa waqtigii maqribka nooga haray marka inaan okay waa ilaa maqribka ka gaarayso okay waa good waxaan rabaa meeqaa ku dhiman hadda meeqaa ku dhiman adiga 10 daqiiqo waa ku siin karaa bis okay hay masin waxaan rabaa رسول من الله يضلو صحفا مطهرة رسول من الله إلى حق سكيمد يضلو أخرنا سوما هرت أساسا رجنا يضلو صحفا مطهرة وراقو صحف مطهرة أخرنا رسول من الله يعني عايز سبحان مركا عن أفهمي إن محمد وإحنا آخرين قانون وإحنا قرية قاني يعني أفهم ولكن مركي هور أنت رسالة كسود دقن وها قفنا إحنا آخر أقونين لكن مركان دم الله بري إحنا آخرين رسول من الله يطلو صحفا مطهرة رسول إلى حق سكيمة وآخرنا يو وقرال آخرنا يو مركا إن مدك له اقرأ مركا اللي هي اقرأ مركا اللي هي أخروا يعني ما أنت أظن ورقد وذن هذا أنت إتماذ أتراد أخري صح يقدر بعدها ما مخت أخري محن أخري وإحنا ما أخري مريهن محن أخري مريهن يعني ماس معناه وح أكشن وح يجمع مغضة إن ورقد له وذو حن أخري لا وحم أخري مركز وليه ومركز كده بالبراء اقرأ باسم ربك الذي خلق لكن ورقد يقرن صوته حدي ورقد له وذو قفا ورقد وهدان تكوي ما أنك له أخري أنا وحبوده ما أخري إلا ذا ما أخري إلا ذا لكن ما ليس حم أخري كرب إن أنت أسمعك وحرب إن جال بحسن رسول من الله يطلع صحفا ما دام ليري رسول الله حق سكيمد وآخرنا يا ليري صحف آخرنا ورقة آخرنا مركا إنه آخرين قاني ماشي يقصوا بحث عني سبب الوارد الشيخ وقر لا قصيا أيه نرتوكم مع محمد دين السؤال هذا يعني قيمها بدنات يعني نيدا ذو كجراد weydiinaysa ama laga yaabo dadka walaalahan qaarna ku soo qoran su'aalaha noocaas oo kala ah laakiin waxa kala jira ma aragtay laba arrinta oo kala saarna intaan ka saarin aayadaas tan ka horeysa akhri ilaa quraanka wuxuu leeyahay wax lagu magacaabo sibaaq ilhaaq siyaaq aayadda maxaa ka hormaray maxaa ku xigtay aayaddii kadibna saad ogaa toobigii ilaahay markuu wuxuu ka sheekaynayaa khabar waay intaas oo kale khabar لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى يأتيهم البينة من نقولن كوي قالوا بي المشركين في أهل الكتاب كوي أهابوا كوي كتاقوا بدأ يكتاقيه إلا عدين أقولتي ماذا صح يعني سؤال شو يدينا اسمه هاد محا فائدة كجرتنا ومحمد الله صدر محا هاد سؤال شو كجوابه إلهي سبحانه وتعالى يعني مكتاقي لهن داد كان إلا عدين أوتي ماذا رسول من الله رسول إلى حق ويمد أو يتلو كدل أخرنا صحفا مطهرة يعني هو قرآنك مركز تلاوة أما قراءة خاصة ما خفك اللغة العربية وحلو ما حلو حجر مجاز لغة ما قاعد خفك واحد وشيء جايبه وآخرينه يا ولد كان معها السجن وبارك بور خط ساقاتي أم بوك ساقاتي كآخرنا مركز تنوى خبر لقى شيء كينا ومشركين كمتى جاي نوحي إلا أي ما الرسول أو آخرنا هذا الإلهي يعني وش جاي هذا الإلهي أما تنوى محمد كساب سنويري اقرأ وحياو حاجرة أنت لواد أن كل شيء جاي وحياو يري راجرة خفك بني آدم كذا هذا وما أنت محمد دينوس هدي لو أمانة نختار
oo lagu yiraahdo dhakhtarkaas daawadiisa maasha Allah aad u fiican tahay oo ilaaha ka badbaadiya cudur nooca ma cudurka ugu dhacay dhakhtarkii u tagtay waxa u tagtay jaado caqliyan ku kalsoon sama ah صح waa u hogaansanaatay saddex daawo ku qor wixii mid subaxdii cun mid markaa khadays mid markaad cashaysid ma oranays details waay sababta waqtigaas cunay maxay tahay sababta kalsoonidii ayaa ku geysatay inaad isku dhiibto qofka caaqilkaana badana waxyaabaha yaryar waa ka fogaadaa markuu kalsooni helo yani aniga waajibkayga waxay tahay inaan ku baaro ilaahay ma jira markaan ku qancay nabi maxamed rasuul ilaahay labaas markaan ku qancay waxyaabahan yararka in aqliga isku taxloojiyay ma aha salaada sababtaan loogu rukuucay maxay tahay sababta loogu sujuuday maxay tahay sababta loo istaagay sababta gacmaha saan loo leeyahay sababta qiblada yani waxa kalsoonidii aad si rasuulka ilaahay xaqiiqda kaaga saadaraadid marka ilaa laga helo saadaraadid marka waxaan ka wadaa aayadda iqra dhehayso yani nabigana wuxuu yiri sax ma ana biqaari marka saddexaad wuxuu maada maxaan akhriyaa ii sheeg markaasuu jibriil ku yiri iqra bismi rabbika alladhi khalaqa al-insana min 'alaq yani magacii rabbigaaga akhri marka yani qofka ama warqad ha loo keeno ama yaan loo keenin qofka caaqil ee ku kalsoon nabi maxamed alayhi salaam rasuulkiisana ilaahay ma isku taxloojinaa waxyaabahaas oo kale faa'iidada weyn ku jirta maxay tahay haddii warqad loo keenay iyo haddaan loo keeninba laakiin faa'iidada wax ku jirta waxay ahayd diintan islaamka waxay ku bilaabatay wax baro wax aqriso qofka inuu noqdo qof wax akhrisanaayo barana qofka markuu cilmi yeesho wax bartana cilmigaas wuxuu gaaraa inuu ilaahay u dhawaado ilaahay wuxuu ku khatimay suuradda maxay tahay wasjud waqtarib ilaahay u sujuud ilaahay u dhawaado cilmiga iyo qiraa'adii iyo waxay gaarsiisay inuu ilaahaas u sujuudo oo maaragtay u dhawaado haddana wuxuu ka hadlayaa biology alladhi khalaqa al-insana min 'alaq alladhi khalaqa al-insana bini aadamka inuu ka abuuray xinjir waxyaabahaas dhan wax aqliga iyo carabta ku cusbaa way laakiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ugu talagalay aakhir zamanka dadka inay akhristaan oo ma aragtay aqligooda la socdo marba marxalad walba wallahi a'lam okay su'aashi marka hadda ya quraanka su'aashi ugu dambayso waa khayr Allah ku siiyo khayr waqtigaada aadanka qaaliga kaaga mahad celinaya quraanka waxa ku jirto ibliiska inuu run sheegay يعني ولقد صدق إبليس ظنه يعني إن حقيقة إبليس ملدي سوى رموده حديث سداس هن فصل كله وإيشي دونتا محو إلهي ولدن ليها مركا إن إبليس أو يعني أو شرعه أو بيناله وقول لي ملدي سوى رموده يعني ملدي إبليس بار رموده يعني إلهي الدنيا أبوري أياب مرقاتك كعاية ومرقاتك كعاية إبليس ضنجيسي ملاديسي إني أرمود إبليس يعني ماشاس يعني إن حدي أنا كسيدا أوقاتي يعني ضد كارو حلقة بقلبي وكجري حتى أنا سكدا موت قلبي مرة الكاس أوقاتي حاسر السيدا إلهي سدو وقرايا إبليس هن أنا إله هدو قرايا والله ولقد صدق إبليس الدنو أنت أصبر أن نجال بحسن ربع صدق على إبليس الدنو سو إبليس رون وشيء كرا سو ملاديس وصور تقول كرتا إله الجوج معنا يعني إحنا قلنا هبل وجو جولست أكل هبل جولست أنا سيق إجاب رال أدوى هذا سقل دم الله رال أها أوكي ما سنت صح ويان لكن مرة والبو يعني وحكوا عدينا يسا aniga aan ognahay ma rumaysanahay quraanka kaliya ma wax la akhristo laakiin wax aqliga bini aadamka akhlaaqiyadkiisa qalbigiisa niyadiisa maskaxdiisa dhiso tarbiyay qofka oo waxyaabo gaar ahaan qofka ku fikirayo akhrisanayo sidaa daraadeed bini aadamka sidoo waxay u badan yihiin maanta qofka aad nacab tahay ama cadowgaaga ah runtii inaadan ka sheegin yani runtii inaadan ka sheegin oo ka sheegtid mar walba been abuuratid ilaahayna subxaanahu wa ta'aala wuxuu noo diiday been abuuradki ilaahay anagoo og ibliis caduwullah inuu yahay oo ilaahay lacnaday kulli haddana ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu noo sheegay meelaha uu ku guulaystay bini aadamka ugu guulaystay dad badanaa raacay dad badanaa u hoggaansanaaday yani qofkii maanta asagoo og ilaahay inuu jiro yani waxaan ognahay fircoon ilaahnimo sheegtay soo ma aha haddana markuu la tashanaya la taliyiisa Haamaan wuxuu ku yiri Muuse wuxuu ugu yiri halkaas ilaahay rumay adduunkana boqor ayaad ka tahay aakhirana jannad galaysaa
waxaan arkaa hadalku hadla hadal logic inuu yahay macquul inuu yahay asagoo heerkaas gaaray caqliyan ku qancay ilaahaas inuu jiro haddana maxaa u diiday inuu rumayn waayo ibliis inuu haddana keliya maya maraad noqotay ilaaha la caabudaya ceeb camal ay tahay inaad noqotay addoon wax caabudaya marka yani warkaas ka bax ku diid saa daraaddeed meelahaas oo kale ibliis uu ku guulaystay ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku leeyahay war cadowgaaga waxyaabo qaar oo kale guulaysto ama kaaga adkaado been ha ka sheegin runta ka sheeg ibliis ilaahay subxaana watacaala runta ka sheeg xadiis waxaan ognahay oo saxiixa bukhaarina ku jiraan jeclahay nin saxaabiga abu hurayra inuu ahaa ama saxaabi kale abu hurayra inuu ahaa ku yiri yani isagii ibliis hadal dhex maray oo nabiga wuxuu ku khatimay sadaqaka wa huwa kaduub run ayuu kuu sheegay isagoo beenaala ah laakiin hadalkan uu kuu sheegay meela socotaa maxamed diina sidan oo dhumayaan walaynaa sax ma dhumooyi kool igu soo waalaya ma fahanta adiga waan dad meesha ku jira kool igu soo waalaya أنا دبعت سماذا كلها بكم تشيخو. أوكي. مركه. النبي عليه السلام حكيري صدقك رن أيو كوشاجي وهو كذوب أسوق حتى بين على هذا عام بنت كو دقراب بين وشاجا لكن أرنتان أو كوشاجي رن أيو كوشاجي. وإلى القرآن كانوا جباري بالقيس إذا قرح عبود يس وحيتر إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. بقرة هذي تولس وجران ويهلايان. دتكي مدح ويدليستان إلهي محوكو ختمي وكذلك يفعلون وارنت تساسي سمايان ما أرن خفتان قال واي هذا كذا هلا بيني مركب وي في عنان له دتك هدي كل تحمل هاين دينته قال حتى قرتي سويسين لا سام هذا بحيرة قال كذي قرتي سنة في سوما مرقول أنت كذي مرقول أنت كذي قرتي على دينته كل شيء أنا كل وين خفكوا حكوا صحيح هاي أما كو أمانية هاي كليستي أنا أخيران ويده أنا خيرتان وفي عناد وحن أجنه دجالكي بدر مكون دماغي أصحاب الخار وحكوا فرح سنين ما دحدي قالوا إني الدلين مركز بلا إني أفلق الديان النبي وحيرها عينين ويردت كان يعني والد لي واحد مات مركز يرهدين يا رسول الله وأيل أضيال أن بالنكلية يردت كان مدحي أحيان حفيرين دأدو لكن بوز كذا فيري مدحي أحيان دت كان هل عاصو يعني لفول حمين يعني لجرجر جيركوده أيوة خرف بدن هلا عاصو دتك عادي الله عاصو أكله ميت كده حتى على كلام وأجنه النبي ميت يهودي مركو ساق مري واستاج مركي لو يدي يهود حيصير نفسد معه خف جيريود سوما وينه استاج هيري مرك هدي دتك أخلاق إك خادم لها الدين كقرآنك هي أخلاق دي النبي الصح أهيد لأن وإنك على خلق عظيم أخلاق في عنا يلوص الدرك يعني waxaa laga yaabaa inaad dad badan ay ma arag diintii ku qancaan laakiin akhlaaqiyadkii markay naga xumaato anaga mabdii sheeganayno waxaan noqonaynaa hadal yiri imaam Abdul Qasim al-Qushayri risaaladiisa amma qiyaamu fa innaha ka qiyaamihim wa ara nisaa al-hayy ghayra nisaa'i teendooyinka guryaha waa guryihii aan ogeyn laakiin dadka ku nool dadkii la yaqiin ma aha magaca islaamka kor waa laga wataa quraanki waa la akhrisanaa laakiin dadkii magaca yani ku dhaqmay si loo dhaqmay ugu ma dhaqmaan yani diintii quraan ilaahay subhanahu wa ta'ala yani wuxuu nabaray qofka xataa ducada yahay meel guuleystay in taaga xaqiisa la siiyo ama santa xamarina gabagabadii tahay oo dhamaata umarina aadan kaaga mahadcelinaa sheekh aadan kaaga mahadcelin wax badan iska daba rafan waxaan bilaano umarina inaan soo qabano laakiin Umar Xuseen noo sheegay wuxuu dhahay Android wata dhahay Maxamed asna iPhone wata marka wuxuu dhahay ma sii sheekaysan kartaa xataa laakiin marka dambe adiga tala isin inta loo qosoonin waxa tiri hadii oo iPhone ka Android soo qabto waa la sheekaysan karaa alxamdulillah noo toostay waa dadaan laakiin ugu dambeeyay inaan marar badan saaro kala u sheekaysan ma insha Allah brother aad nin walaalkayga tahay ma santa ma sha Allah aad ma santa aragtay ya akhi Maxamed diinta marka uu shaqeynayo waxa loo baahan yahay makhluuqaadka oo dhan bini aadamka oo dhan inuu jeclaado صح laba arin darteed صح tan koowaad Soomaalidu waxay ku mahmahdaa akhi qofka jeceshahay eygiisa waa la jeclaadaa نعم saas maaha ay maxay soo qaateen ay waxa diintay kamid tahay Soomaali dhaqan aan si waxa la liido صح مدام عيسى جعشني موسى عيسى موسى مدام جعشني ومدي سنة جعلت صح والله كان بيوه يسألون
وجعلنا مركا إله جعشها وحو أورا دون لانيسا مخلوقاتك أورا دون وجع ما فيرنيس كان لكن فيرنا يا أوري إلهي سو مجعشي يا أبورها خفك جعشها بيجي سو جعلان لهد إلهي نوحو أور وجعلان تاسو أمد كان لبعض خفك الدين تقشقينا وبوسكي محمد تاجين نبي محمد أورنجري ما أنا لكم إلا بمثابة الوالد وحن إذن تاجنا بوسكي أباها adiga aaba markaa tahay ilaahay carruurtaada ku barakeeya carruurtaada dhan sooma wada jeceshiin waa jeceshahay laakiin waxaa necebtahay waxyaabaha qaar ay samaynayaan actionada qaar ay qaadayaan aniga actionka qofka waa nici karaa hadallada qaar tan kara uu ka hadlaya laakiin qofka bini aadam ahaan waan jeclahay mar walba sababtaa ilaahay ii abuuray waa qof ilaahay xaggiisa ilaahay iga timid ilaahana waa jeclahay tan labaad booskii nabi maxamed aan taaganahay dadka waalidaan u ahay dadka dhan waa carruurteeda si kastaba ha u fogaadaan camalku ku fogaada ayaan la dagaalamayaan ka saxaan taga ahaan waa jeclahay marka madiinos waa jeclahay qalbigayga ku jirta saaxiibkayga barnaamijyadan aan sii wadana barnaamijyadan aan sii wadana isku soo dhawaasho waa walaalnimo waa wanaag waaye aan sii wadana barnaamijyadan aad iyo waa maasanta jazaaka allah khayr assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ها إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.